madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maalintii shanaad booqasho ku maraya gobolada bariga Soomaaliland ee abaartu ku dhufatay ayaa aroortii hore ee Khamiistii maanta kormeer ku maray wadada Ceeri Gaabo oo dhismaheedu uu socday sanadihii ugu dambeeyayba. kormeerka madaxweynuhu waxa uu ku soo beegmay xilli dhismaha wadada uu ku socdo xawligii ugu sareeyay waxaana heegan ku jiray dhammaanba shaqaalaha wadada iyo gaadiidka kala duwan ee lagu fulinayo hawsha dhismaha. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo socod lug ah ku maray wadada uu isagu hirgeliyay waxa kormeerkiisa ku weheliyay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi marwada madaxweynaha Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde iyo xubno wasiir ah oo ka mid yahay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta wasiirada madaxtooyada maaliyadda warfaafinta gaashaandhiga xildhibaano iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga talada haya. maareeyaha ku-xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ahna maareeyaha mashruuca dhismaha wadada Ceeri Gaabo iyo injineerka guud ee gacanta ku haya dhismaha wadada oo ugu horeyn madaxweynaha sharaxaad ka siiyay habsamo socodka hawsha wadada waxa ay si isku mid ah u xaqiijiyeen in dhismaha wadada uu xawaare sare ku socday tan iyo intii la hoos keenay wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland. mudane madaxweyne waxaanu ku rajaynahay in ilaahay inaku guuleeyo dhamaystirka oo aad xariga ka jirtid maalin dhow waxa weeye way dhamaatay wadadii Ceeri Gaabo iyo haday isku xirantay Ceelaf Weyn waxa weeye wadada 300 kiiloomitir ah oo cid ku dhiirata la waayay maanta ilaahay waa keen inoo fududeeyay waa alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynaha qaranka waa madaxweynaha qaranka ayaa hawsha hormuudka ah oo inoo waxa weeye inoo ku dhiiriyay hawsha cid kasta ku dhiiran weeyday mudan madaxweyne booqashadii hore ee tan ka horeysay waxaad noogu timiday wadada oo maraysa leeyarka koowaad hal leeyar ee Ceelaf Weyn daamurkuna markaa wuxuu ahaa wax yar buu ahaa 2 kiiloomitir baa ilaa 7 kiiloomitir buu ahaa muddo 12 bilooda shaqada aanu qabanay shaqo waxa weeye aad iyo aad u laxaad leh daamurku maanta wuxuu marayaa waa 110 kiiloomitir halka waxa ka muuqata inuu 10 jibaarmay ama aan ilaahdo يعني booqashadii ugu dambeysay 10 goor ayaanu jibaarnaa ama 12 bilood ugu dambeysay ayaa shaqada xoogeedu dhacday. wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo hadal kooban ka jeediyay goobta waxa uu ka warramay halka ay marayso hawsha wadadu isla markaana waxa uu iftiimiyay farqiga u dhaxeeya markii isaga lagu wareejiyay meeshii ay maraysay dhismaha wadadu iyo halka ay maanta marayso. ilaa Ceeri Gaabo ilaa halka aynu joognaa waa laami aan kala gool ahayn ilaa iyo marka laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Inaaf Madoobe iyo ilaa waridaadna waxa weeye isna waa laami ilaa inta u dhaxaysaana waxa weeye marka laga reebo 20 kiiloomitir waa wado jidcada oo carakaawada ay isku xidhan tahay in yaro dhaxo saraara ayaa ka dhiman shaqadina way socotaa waxa ka soo dhex gashay abaarta iyo biyo dhaamiska iyo hawshan laakiin si xawlo aad iyo aad u dardar leh ku socotay. mudane madaxweyne halka waxaan anigu soo maray markii la magacaabay December 12 bilood ka hor safarkii ugu horeeyay bay ahayd waxaan soo maray iyadoo wadada jidcadaha ay marayso Ceelaf Weyn halka ka shaqeysa ee ay taalo meesha la yiraahdo daamurku yaallo kiiloomitir ama 2 kiiloomitir magaalada dhinaceeda iyadoo maraysa daamurkan iminka aynu halkan taaganahay halkeeda aanu istaagnay xafladda ku qabanayna waxay ahayd meel 14 kiiloomitir u jirta Ceeri Gaabo waxa la yiraahdaa Ceel Dadaable waa meesha godka ee bundada yar leh dhirta quraacda leh halkaas aanu taagnay maantana waxay maraysaa halka imka aynu marayno waa Ceelaf Weyn dusheeda taagan anigu maalintii ugu horeysaan imi runtii dad badan baa igu canaantay war waxan maxaad u sheegi weyd laakiin wuxuu markay dhismo tahay madaxweyne dhismo waa wax la taaban karo imka guri hadda dhisto gurigu uu dhismay weey qofna oran maayo gurigii muu dhismay way waa la imanaya waa la gelaya waa la seexanaya waa loo hoynaya laakiin waxa laga xariibsanaa madaxweyne media iyo faanfaan badan iyo faataadhug badan ma sameeynin waxa hawsha madaxweyne waliba noo dheeraa 700 iyo dheeraadka daamurka ee 14 kiiloomitir markana 100 iyo dheeraad maraysa waxa noo dheeraa deyn oo ay tahay runtii in la sheego oo aan la qarin madaxweyne waxaana lagu wareejiyay oo garhka la geliyay 5 milyan
lacag gaadhaysa oo deyna oo maanta ka hor aanan ka hadal waxaa kale oo goobta hadallo ka jeediyey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo madaxweynaha ku amaanay sida uu ugu dhiiraday dhismaha wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo Somaliland inteeda kale. maalintii dhagaxayna fadowna dhigaynaan ku qiiroonayay waxaan arkayay ummaddu inay arki doonto waxa soo socda marka waxa weeye sheekadooda waxa ku dhantay in gabiga inankaasu tiriyay ifi aakhira janno iyo dawlad cimri uu sheegay intaba ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhimi madaxweynaha way ku haysa waxaan ku darayaa un qodob wasiir Cali intii uu yimi wadada dardargelintii xoog ay qaadatay ilaahay un baa og yani mar quray take off runtii qaadatay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo isna goobta ka hadlay waxa uu hambaliyo u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo rumeeyay riyadiisii ahayd in gobolka Sanaag loo sameeyo wada ku xidha wadanka intiisa kale waxaanu tusaa wadada dadku hadduu isu kalsoonaado aragti wanaagsan yeesho inaan wax walba qabsan karno Somaliland waxaanu ku hambaliyeynaa bar labaad madaxweynaha ofishka ugu hogaamiyay wasaaradda hawlaha guud oo hadda gacanta ku hayso iyana sanadkan aad u daashay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo gabagabadii hadal kooban ka jeediyay goobta waxa uu sheegay in muddo dheerba uu ku hamiyay dhismaha wadadan muhiimka waxaana uu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaheeda kulligeen farxad weyn bay inoo tahay inaan maanta ka soo qayb galno wadada tan ergaabo aynu arkayno ahmiyadii halkay marayso waxaan leeyahay isgaarsiintu aad bay muhiim u leedahay dalka oo dhan wadana ergaabana in badan baynu ku fikiraynay in badan baynu hawlgelinay in badan baynu maalgelinay meel wanaagsan way inoo maraysaa waxaan jecelahay halkan hambaliyo ballaadhan uga soo jeediyay in alla intii ka qayb gashay oo dhan kamariyaasha ka shaqeeyay iyo dad ka shaqeeyay wasaaradii ka shaqeeyay iyo cid alla cid hawlahaas oo meel kasta noqotay gacan ka geysatay intaba ilaahay nala qabto dalkan iyo dadkan meel wanaagsan mariyo aad iyo aad u mahadsantahay inkastoo wadanka laga hirgeliyay wadooyin tiro badan tan iyo intii uu xukunka qabtay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo haddana jidka Ceerigaabo waa jidka ugu hadal haynta badan isla markaana hantida ugu badan ee ay gashay Nuuridiin Cabdulaahi Cali Joog iyo Ciise Shiine telefishinka qaranka Somaliland Ceerigaabo